Sultan Rashid Aw Maxamed Xaaji Jaamac ayaa maanta lagu caleemo saaray deegaanka Kaamaashin ee degmada Xarsheena waxaana si wada jira u caleemo saaray sandalada beelaha Arab oo hogaaminaya sultaanka guud ee beelaha Arab Sultan Cumar Sultan Maxamed waxaana ka soo qayb galay caleemo saarka sultaanka culimada odayaasha cuqaasha iyo wafdi balaaran oo ka socda dowladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya Sultan Rashid Aw Maxamed ayaa tara ahaan ujeedada loo doortay tahay inuu ahaado sultaanka guud ee beelaha Arab ku yeelan doonaan dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ugu horreyn waxa hadalada iska daba maray odayaasha cuqaasha waxaana soo dhaweeyeen talada lagu midaysan yahay ee lagu doortay Sultan Rashid sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay xubnihii mas'uuliyiinta ah ee ka socday dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya baahi weyn buu naga daboolaya waxaanu leenahay insha Allah taala markaan ognahay kartidiisa markaan ognahay daacadnimadiisa hay'adiyad waana soo dhaweynayaa تعبكيجينا الحمد لله رب العالمين. يا دكتور محمد علينا qoladii gudiga ahayd hawshan muddo soo waday baan ahayn markii aanu cilaaminay qabalayada sida ay nooga aqbaleen ducadaas aad iyo aad baan uga mahad celinayaa una qaateen taladii wanaagsaneyd ee aanu soo jeedinay ugana jawaabeen sidii wanaagsaneyd ee uga maartay u guddoomeen dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweynaheeda aanu kala kulanay inaana ka maarmin sultaan ugu matala dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya uu naga ogolaaday inaanu iskugu nimaadno meel kasta oo aanu joogno arabina halka ku kulmo waxaan leeyahay nabadgelyada aan adkaysano nabadgelyada halka waxaynu iskugu nimi inagoo meel kasta iskaga kala nimi waxaynu halka geedka hoostiisa aynu ilaahay inoogu aqbalayaa nabadgelyo wey nabadgelyo kala waxaan ugu gudbayaa waxaan marka dooraynaa macalin sultaankaan nuku markaan dadka Itoobiya joogan lahayn baahi baan u qabnaa nuku marka kilalka la isugu maadada sultaanada loo yeero sultaan kuma jirin Sultan Barre Xaaji Xuseen ugaas Axmed Siciid Sultan Cabdillaahi Sultan Maxamed Fulgaawe waxaana dhamaantooda hadaladoodu ku aadanayeen caleemo saarka sultaanka hore aanu yiri hore yaa waa kaas caaw warina adeero waa looga baahayay meeshaas caawa galbeed waa looga baahayay nin sultaano beeshu waa uga baahantay dadku war waxaad yeeshaan war arrinka soo diyaar garow wuu ka meermeerayo wuxuu yidhi war iga daayo oday reer baan ahay iga daayo ilaahay maalintuu qadaray baa maanta nimid ducada iyo ducada wixii ka dambeeyay oo ahaa in caleemo saarka sultaankeena guud ee dowladda deegaanka Soomaaliyeed ee Itoobiya waa arrin loo dhamaa waa arrin arkaysaan dhammaan salaadiintii inay wada fadhido iyo cuqaashi waa arrin laga midaysan yahay weey Sultan Rashid waanu kula qaadanay waana noo gudoon ducadii alla barigii oo tashidiina uu ka dhashay inaynu caleemo saarano sultaan cusub oo aynu ku soo dooranay Sultan Rashid Sultan Cumar Sultan Maxamed oo caleemo saarkii koobaad isagu saaray sultaanka oo halkaasi hadlay ayaa waxa kamid ah hadaladiisii arrintan kale aynu isku nimid waxa weeyaan inaynu caleemo saarno Rashid Aw Maxamed Xaaji Jaamac cidda quree aanu anagu hortaanu sultaanadaan waan ka soo jeedo cidda quraana ku tirsan waa guuranay abaalkeedii waan celinay gabagabadii waxaa madashaasi ka hadlay sultaanka la caleemo saaray ee Sultan Rashid Aw Maxamed Xaaji Jaamac waxaanu tilmaamay awoodiisa iyo ogolaashihiisa oo cadaan maarta barakaysan isku keenay inagoo danteena iyo aayaheena ka tashanayna مسؤولة أيضا ورتين
mid aan ku talagashanaa maaha mid qalbigeed ku jirtay maaha waa mid marka ay garateen anigoo aan ka aqbalay cabdiraxmaan samriye tv-ga caalamiga Home Cable TV deegaanka Kaamaashin.